معك استنبلت على المريض انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وانا عايشة محمد دقيل أو كم إذا شباب ودني بحرين تأوجادين يجور أسكرية كان من عيدا كلو سلوي مقالة ما راح كورن بالنمع أدب ديرتها لكن دريسكي وقفتها أنا أنت كده داير بندرس كحدا أما هنا أنا هلكن أدير جروبي ما توين هاي والله كستانا كواير كسر ما أنت دباتوين كان هلكن كسر ما بيجري جوجي هي لكن قف كستوين ما أنت إلهي موين أنا كوين واي أربان أو هاي دباتو أنا قاعد قاعدين بأباه اللي حري ما هنقول وين الرفادي رير كنا جبا الروج قاعدين هو إذا بنجي قدر قاعدين إلهي بنوقف بتبادي مش ما أقولني بعد كده مركان سوق قاعدين بقى ونقول بعد كده أديكو كليات كورستي مسررك كودري كل شيء دون طبعا نقول سدي أدوك مركي وان رير قلي لكن مركان سوق كورستي بقى ويلكي ولا يحري هذانا ويلكي أس كورستين مركان ها ويلكي ولا حري مركي لا حري بعدين أنا اللي سورة سدي مركب حبسي قال لك إيسا أباي يقول كان والجونا لبده يشيلوا قاعدين بسكوك تجان أباي نسيت سنة حنا ويلكنا سجال سنة حنا مركا صادي أنا ينو اللي سورة سدينا مش ليوجي على دمعي بس إله بيجي بدبادية وكعرب الوطن كصومالي أنقلي صومالي مددر نولا صومالي وطن إسكندر بعت بدن أو نولا العجولي عليه markaan Soomaaliya waxay istaagtay in la igu soo raadiyo xataa oo la dhaho maxaan ku leeyahay telefoonka dadka aan ka soo wacay wixii oo dhan la soo raadiyo la dhaho gabadhii doona marka waxay la gudboonaantay inaan argoosto mooyaan inaan Google ku saxsaxan ama ma ahan aan nasaninba dagaal baan diyaar garoobay inaan qora qaato tababar baan galay marka saad ku saarnaatay in ma gudaha wadankaad ku gashay mise la tiriya tagtay ma gudaha wadanka ma soo geli karin dadkii soo galay tababarka xageed ku gashay markaa tababarka waxaan ku galay wadanka Eritrea imsana halka ku noolayd sanado badan baan ku noolaa hadda intaas oo sano ma dhihi karayo laakiin adigu tababarkayga waan ku soo bogtay wax tababar ah iyo hadan ma jiro waan soo qalin jabiyay waxyaabo badan oo maadi iyo diini iyo wax kastana waan ka soo bartay maskax badan iyo muruq badan waan ku soo tababartay marka saad waad timid cutubkii maalinka dhaweyd baad la socotay aabi iyo mis aragteen iyo wiilkii aad wada joogteen mise wali way xidhan yihiin maya hadda wax xidhan oo shacabkii ama jiraan aabahay waan ismaqlay qaracan buu aabahay maxaan ku dhaaday ilaahay likir waayo markii la yidhi nimca nool oo kula hadlaysa qaracan buu ilaahay likir waayo aabahay markii uu miir beelay qaracan daraadii way dhimatay islaa in badan warkayga waa la laa wiilkiina waan is aragnay asaga laftiisa qaracan iyo murug uma yarayn balse wixii oo dhan hada farxad baan ku bedelanaa maadaama jijay wada joogna ama wadankii laakiin waliga ma la hadashay reerkiina ma la hadli jirtay intaad ama Soomaali jirtay ama la tiriye jirtay 9 sanad ka maqnay saad sheegtay reerka naga lama hadli karin telefoonka hadaan soo waco hooyadii iyo ehelkii waa la qabsanayay si aad ula hadli kartaan gabadha dambiilaha ah la lahaa marka ma la hadli jirin ima suuragal jirin reerka naga intaan Soomaaliya joogayna way iga warhayeen laakiin mayna ila hadli karin intaan hadda Eritrea jiray iyo wadamada tababarada ama maahan jidadka sii marayna way ka warlaayeen doomaha rugmaday bay igu tirnayeen marka hadda qof kasta markaan la hadlo uu qaadin la ayahay qarac mudadkii